السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dhageystayaal ku soo dhawaada Hubal Media iyo xogta ka dambayso arinta Jamaal Carab Khuriye oo maanta lagu qabtay xarunta madaxtooyada horteeda lana sheegay in gaariga uu watay ay dhex taalay bistoolad lagana soo duubay muuqaalkan aad haddaba arkaysaan ee idin soo gudbiyay maxaa xogtan ka xaqiiqo ah maxaa sakabeen ah maxaa run noqon karo maxaan saru noqon karin ma yahay barnaamij horey looga soo shaqeeyay mise waa barnaamij markaas lala kulmay xarunta madaxtooyada ma leedahay kaamirooyin irideeda hore mise ma laha kaamirada muuqaalkan laga duubay xagee lagu keenay ma diyaar baa lala ahaa ma goobtay ku dhagan tahay askarta meesha taaganse wax ma duubtaa qaabka ama luqadda ay askartu ku hadlahayaanse ma tahay qaab saxa mise waa qaab la qorsheeyay oo nidaamaha la duubay xogtan oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan Hubal Media balse haddaad ku cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe garayso oo ka mid noqoto macaamiisha qaybta ka Hubal Media haddaba intaynan gelin muuqaalka adiguba waad nala daawanaysaa waad arkaysaa qaabka ay wax u dhacayaan balse aan wax yar daawano inaga oo hadlaynin oo aamusan qaabka loo duubay iyo hadalka Jamaal iyo wuxuu kaga jawaabayo bal dhageyso hadalka Jamaal su'aasha la weydiinayo iyo askarta weydiinayso qaabka wuxuu weydiinayaan aysan muuqaalkani qofka duubay wuxuu u yimid gaariga oo taagan kadib wuxuu ku qabtay gaariga kadibna wuxuu ku qabtay taarikada ama number plate-ka ama numberka sumadda ee gaariga sida idin muuqato oo ah eber 3894 kadib wuu la aaday daaqada midige dhinaca darawalka mooyaane dhinaca kale waxaadna arkaysaa yani in uu su'aal weydiinayo Jamaal askari kala dhinaca bidix ka taagan gaariga askar kalena waa ay ku soo socdaan kuna daaqada Jamaal buu furahayaa haddaba yani meesha waxaad u arkaysaa in uu yahay barnaamij la diyaariyay la qorsheeyay la nidaamiyay la istiraatijiyeeyay laga fikiray waqti lagu bixiyay dhaqaale lagu bixiyay loo diyaar garoobay يعني wax walba oo barnaamijkaasi lagu diyaarin lahaa in laga tabaabshaystay gaarigu taagan yahay askari baa ku soo dhaqaaqay daaqadu furaya ku kala ku soo dhaqaaqay daaqada kala furaya number plate ka sawirka lagu qabanaya kuwa hore ka soo galahayo kuwii kalena way iyagoo taagan bay soo fiirinayaan waxaad arkaysaa marka barnaamijku yahay barnaamij la diyaariyay bataatan ba uusan ahayn barnaamij si yani degdeg ku dhacay ama si fudud ku dhacay ama askartu iyagoo iska weydiiyay ay bistoolada ku arkeen waa talabaad Jamaal wuxuu sheegay in gaariga isaga uusan lahayn wuxuu sheegay in gaarigiisi oo halaabay kadib uu gaarigani soo qaatay waxa dhex yaalayna uusan ogeyn intaynaan taa u gudbin Jamaal wuxuu sheegay in uu wasiir ballan kula lahaa xarunta madaxtooyada intaan taa loo sii gudbin laftigeeda waxaa su'aal kala ah madaxtooyadu ma waxay leedahay kaamera ku xidhan irideedu jawaabtu waa mid iska cad oo ah maya malahan wax kaamera madaxtooyadu haddaba muuqaalkan waxaa lagu duubay si dhammaystiran telefoon laba marka hays qabato ma markii la ogaaday Jamaal in gaarigiisa bastoolad saaran tahay baa su'aasha yani muuqaalka duubitaankiisa la galay mise waa barnaamij si diyaarsanaa ma aysan soo duubin askarta weydiinayso Jamaal bastoolada say ku ogaadeen sida lagu baaray sida lagu helay ma aysan soo duubin kaliya waxay soo duubeen Jamaal oo leh wasiirkan ballan la lahaa gaarigana gaariga markuu halaaba soo qaatay taa marka maxaa ku wacd in barnaamijku yahay barnaamij laga shaqeeyay oo uusan ahayn barnaamij si kama ku dhacay waayo haddii xitaa la duubahay even xitaa haddii la duubahay
waxay ahaan lahayd in koow baaritaanka meeshu ka bilowday suuq imaado wixii oo dhan yani step by step in barnaamijka loo sameeyo yay ahaan lahayd laakiin kaliya maxaa la soo qaatay daaqad la furay gaariga lambar bileedkiisa jamaal oo hadlahayo la wasiirkan u socday isagoo la gaarigan ka soo tagay waxa gaariga dhex yaalana ma garanayo laba su'aalood baa iskor saaran marka su'aasha koobaad ma markii hawshan la ogaaday kadib yaa la ogaaday in jamaal uu bastooladan gaariga ku dhex watay haddiise taa la ogaaday maxaa isla waqtigaaba kaliya bastoolada meesha laga helay iyo jamaal wajigiisa iyo su'aasha la weydiin kale loo duubi waayay su'aasha kale isweydiinta la waxay tahay gaarigan jamaalba ma lahane miyaa la soo gali bastoolada taa anu jawaabteeda ma hayno laakiin totally muuqaalkan waa muuqaal waqti la geliyay weey waa muuqaal waqti la geliyay waa muuqaal laga soo shaqeeyay waa muuqaal waqti farabadan lagu bixiyay وانا muuqaal laga sii taxadaray loona ogaa xilligu uu jamaal imaanay say yani muuqaalku u muuqdo qaabku u socdo waayo bal si fiican u fiiriya askari daaqadu furay haye sug gaariga lagu wada qabtay ilaa dariishada darawalka askari baa soo socdo waa laga soo tagay lamba baleedka la imaaday lamba gaariga la imaaday askariga daaqadu furay meeshuu taagan yahay jamaal baa hadlayo wuxuu leeyahay madaxtooyada Sacuudi wasiir baan la kulansanaa gaarigeygina waa iga halowsanaa marka yaani waa barnaamij bal fiiri si fiican u fiiri labada askari xataa way isla taagnayeen midna xagga kale uu ka taagan yahay marka waa barnaamij la diyaariyo la istiraatijiyeeyo waqti lagu bixiyay ma ahan barnaamij sikadiisa ku dhacay xaqiiqatan kullayda qofka aqli la ama garaadka shaqeynaya maskaxda shaqeynaysa uu arkaya marka xukuumaddu iyada yeesan gamcaheeda isku fashilinina qaabka xataa ay wuxuu soo bandhigayso at least ha noqdo xataa qaab yani sensible qaab la fahmi karo tan kale muuqaalkan waxaa lagu soo gudbiyay page-ka la yiraahdo Siraj News sidaan ognahayba wuxuu aad u buunbuuniyaa madaxtooyada waxaadna moodaa yani in isaga oo kaliya loo soo diray meel kale kuma arkan anigu Siraj News oo ku qoran mooyaane meel kale kuma arkan dad ku aragtay hoosta wada u sheegi kartaan laakiin Siraj News kale ku qortay marka xukuumadda waxaan ka codsanaynaa in barnaamijkan soo ku dhacay si rasmi soo bandhigto midda kale maxaa loogu soo deyn waay TV-ga maxaa kaliya muuqaalkan lagu koobay